afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax oo maanta shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal shalay gudaha magaalada Kismaayo ku dhex maray ciidamada maamulka Jubba iyo kooxaha hubaysan. afhayeenka ayaa sheegay in dagaalkii shalay uu u dhaxeeyay ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada uu sheegay inay jidgooyooyin dhigteen gudaha magaalada Kismaayo. shalay magaalada Kismaayo runtii waxa ka dhacay dagaalkaas wuxuu ahaa sida loo dhigay iyo caalamka uga hadlay iyo maartay media iyo qaabka ay marmaan xayad u biyaan dadka ummadda Soomaaliyeed waxa jirtay maartay in ciidan runtii is-abaabulay oo damcaynay fawdo sameeyaan oo xagga xaaladda amniga ay wax u dhimaan runtii jidgooyo magaalada dhigay in la isku dayay ciidanka amniga runtii inay hawshaasi xalliyaan wax ka qabtaan marka hawshaasi inay marka dambe isku bedeshay gacan ka hadal iyo dagaal oo nimankaas runtii ay dagaal sameeyeen anagu isku daynay in lagu xalliyo runtii hadal iyo maartay iyadoo ay dhib dhicin laakiin xoolaha waxaa mooday dad meelo kale runtii ku xidhnaa oo aan is leeyahay dad cadow runtii si uu maartay u riixayay in dhibkaasi uu dhacay dhibkaas hadda waa la xaliyay si kulliyana waa la xaliyay nabadgelyada magaalada runtii way fiican tahay hadda problem ma jiro doonashada runtii dadka dhintay dad badan ma ahayn dhar waxay la maartay afar ruux meelahaas yaa dhintay runtii dhaawacna waa jiray dhaawac ma badna waa xisleey waa 5 ruux meelaha iyaguna hawshaas hadda waa la xaliyay waxaan u sheegaynaa marka adduunka iyo beesha caalamka in aan la bumbuuninin runtii waxyaalaha noocaas oo wax meel kasta ka dhaca. dhinaca kale waxaa isla maanta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ka soo degay wafdi ka socda dowladda Imaaraadka kaasoo magaalada u yimid in maalgashi ay ku sameeyaan iyadoo wafdigan uu soo kormeeray dekedda magaalada Kismaayo. imaatiga wafdigan ayaa waxaa saxaafadda ugu warbixiyay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubbooyin ganacsi sida aad ka warqabtaan waxaan rabnaa in aan bilowno arin shipping waxa ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye in Kismaayo aan ku soo xirno caalamka faa'iidada dadka reer degan Kismaayo agaarihiisa ay ka heli doonaan arintan haday bilaabato waxay tahay in Kismaayo ay ku xiranto caalamka ay ku xiranto. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo.